يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah. صحب بقربهم السعادة والنجاة. amaanada markaad ilaalisay, xaaraanta markaad iska ilaalisay, ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaal ah inuu ku siiyo. بقربهم السعادة والنجاة. faatimada aan ka sheekaynaya ee axmed cabditawaab u dhalay waa aniga maanta idin hortaagan, macallimada idin ah. sidaa daraaddeed waxaan idin sheegayaa bay ku tiri khayr haddaad samayso waad helaysaa. بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. adigu aabbahasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma caruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan. دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسو دوادا برنامج كينا قصوين كان الله waxaan ku soo qaadanaa qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah si aynu ugu waana qaadano tusaalana inoo noqdaan. qisadeena maanta daawada waxay ku saabsan tahay waxaa jira nin sheekha oo masaajid ka akhrin jiray kitaab. sheekha waxa la oran jiray Saleem Suyuuti ayaa la oran jiray. waxaa dhacay sheekhaasi kitaabka akhrin jiray waxa masaajidkiisa ku dhex noolaa nin yaroo arday ah oo faqiira. waxaa dhacay ninkii yaraa ardayga faqiirka ahaa ayaa gaajooday. 2 cisho markuu wax uu cuno waayey ayuu maalintii saddexaad fakiray. wuxuu ogaaday maalinta saddexaad hadduu wax cuni waayo inuu dhimanaayo. kadib wuxuu go'aansaday inuu wax raadsado, xataa hadduu doonaha soo xadee inuu wax raadsado go'aansaday. kadib wuxuu sameeyey masaajidku ku noolaa ayuu fuulay. masaajidkii markuu fuulay ayaa wuxuu rabaa guryaha masaajidka ku xiga intuu u dhaco mid ka mid inuu wax ka soo cuno. markaa wuxuu sameeyey masaajidka markuu fuulay ayuu gurigiisa ugu horeeyay masaajidka ku ag yaalay isku qabsoomaayeen ayuu eegay. wuxuu arkay inay dumar ka hadlayaan uu dhaafay. masaajidkii labaad buu eegay, gurigii labaad buu eegay. wuxuu arkay inuu cunto ka soo urursada madbaqiisa. uu ku daadegay gurigana cidlo ahaa, madbaqii buu galay. madbaqii sidaa markuu galay ayaa mise wuxuu arkay dheriga saaranba waa faaruudaj baa saaran, waa cunto aad u macaan oo carabtu aad u jeclaayeen. isla markiiba bahalkiibuu qabsaday. sidaa markuu u qabsaday uu sida afka u geliyey, uu ilkaha sida ugu qaniinay, uu isyiri liq ayuu xasuustay. ilaahay xasuustay. markuu ilaahay xasuustay ayuu murgooday. markaasuu yidhi maanoo arday ah masaajid ku dhex nool kitaab diin dhiganaya miyaan maanta dadkii xadaya? ilaah waan ku toobad keenay. bartiibuu ku joojiyey cunitaankii. intuu afkii ka soo saaray ayuu bartiisii ku celiyey. halkiisibuu ka noqday, masaajidkiisibuu dib ugu noqday. masaajidkii dib markuu ugu noqday ayuu xalqadii sheekho socota markaa ayuu iska fadhiistay. laakiinse uu gaajoonayaayo xalqadda waxa ka socda ma fahmi karaba. in yar ka bacdi xalqadii markay dhammaatay ayaa gabadhi soo gashay. gabadhi markaa saa u soo gashay ayay sheekha hoos ula hadashay. sheekha markay hoos ula hadashay ayuu sheekhu sidaa noo eegay. markuu sidaa dadkii u eegay mise cidba ma joogto anuuma meesha fadhiyaba waabuu ii yeedha. kaalay buu yidhi. wuxuu igu yidhi weli ma guursatay? waxaan ku yidhi weli maan guursan. si wuxuu igu yidhi sheekhii baa igu odhanayee ma rabtaa inaad guursato? saan ku yidhi sheekh maxaan guursani? roodhi waxaan ku soo iibsadaa ma haystee. markaasuu yidhi dhegayso, gabadhan iminka ii timi waxay igu tiri nin baa i qabay, ninkii baa iga dhintay. markuu iga dhintana wuxuu iiga tegay guri iyo macaash, biil buu iiga tegay, mushahar buu iiga tegay. waxaan rabaabay tiri nin ilaahay dartii ii guursada oo nolosha runtii aanu iska caawino. markaa dadana waxay leedahay
oday bay leedahay halkaa odayga halkaa fadhiya ayay leedahay adeerkeeda cid kalaan ma haysato markaa diyaar ma tahay inaad gabadhaa guursato ninkii bay raxaada waa guursanaya ilaa waa alaab isku qofalaan markaas u aqbalay inuu guursado ninkii baa oday sheekhi baa muxuu sameeyey laba markhaati buu u yeedhay odaygii adeerka u ahaana uu yeedhay meherkiina isagaa ka bixiyey uu isu meheriyey markuu isu meheriyey ayuu yidhi israaca waa israaceen gabadhii iyo inankii faqiirka ahabaa israacay gurigii bay tageen gurigii saa marka u galeen ila guriguba waa gurigu u soo dhacay ee uu yidhi wax ka xad sida markuu u soo galay ayaa waxay samaysay gabadhu ay ninkii ku tiri cunto ma rabtaa suuri haa madbakhii bay gashay madbakhii markay saa u gashay sidaa daboolka uga qaaday mise waxaabay aragtayba cuntadiiyo qayb ka mida lago sidaa ilkaha loogu qaninay markiiba waxaa tii allah oo maxaa dhacay bay tiri sootan cuntadii aan karinayay meesha aan saarayba ilkaha lagu qaninay ninkiiba saa u soo egtayoo mise waaba ninkiiyo aad u yaaban dhinacna ka ooyaya markaas waxay ku tiri maxaa dhacay markaasuu qisada uga sheekay uu ku yidhi anigoo gaajoonaya ayaan halkan soo galay saan u xado markaan sidaa u hurayna afka u geliyeyna ilaahay baan xasuustay waan ka tegey gabadhiya maxay ugu jawaabtay ammaanada markaad ilaalisay xaaraanta markaad iska ilaalisay baadinjaankan inaad cunto markaad iska ilaalisay ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaala inuu ku siiyo ayuu ilaahay kugu abaalguday daawada qisadan waxay tilmaamaysaa haddii aad xalaasha ku dadaasho haddaad xaaraan oo dhan ka tagto ilaahay dartii aad uga tagto ilaahay wax ciwad ah oo badiil ah oo ka khayr badan ayuu ku siinayaa marka ku dadaal noloshaada intaad nooshahay xalaal kaliya inaad quudato taa ku dadaal taasaa muhiima wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا